الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد halkani waa machad bushra waxaan rabaa inaan maanta soo gudbiyo calaamadaha iyo rumuusta waqfiga ee quraanka kariimka waxa halkan ku arkaysaan machad bushra sidoo kale waxaad arkaysaan calaamatul waqfi fi quraan alkariim calaamatul waqfi fi quraan alkariim waa calaamadaha iyo tilmaamaha ina tusaya ama aynu ku garanayno in meeshan lagu istaagayo qofku markuu quraanka akhrinayo ama markaad quraanka akhrinayso waxaa laga yaabaa inaad quraan ku aragto calaamadahan miimkan aayad dul saaran laamkan dul saaran jiimkan dul saaran salaadan dul saaran qalaadan dul saaran dhibcaha noocan dul saaran inaad quraanka ku aragto laga yaabaa waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxay calaamadahan ay tilmaamayaan haddaba waxaan rabaa inaan halkan kusoo gudbiyo calaamadahan macnahay u taagan yihiin calaamadahan macnahay u taagan yihiin marka waa calaamad rumuusna waa loo yaqaan rumuusul quraan calaamatul quraan calaamadaha inoo tilmaamaya alwaqfi istaag inay haboon tahay aayadan in la isku taago ama aysan haboonayn aayadan in la isku taago oo meel kale ma aha waa fil quraan alkariim kaliya halkan waxaad ku arkaynaa calaamatul waqfi halkaana waxaan ku arkaynaa dalaalaatuha magacaygu waa maxamed halkana waa machad bushra xarunta barashada culumta shareecada calaamatul waqfi halkan intan ku qoran oo kaliya maaha waxaa jira calaamado kaliya rumuus kale oo quraanka ka leeyahay insha Allah ayadana mar kale ayaynu ka sameey doonaa barnaamij ama video yar ka sameey doonaa laakiin halkani waa inta ugu muhiimsan ee laga yaabaa inay dad badan aysan garanaynin intii garanaysana alxamdulillah marka calaamatul waqfi halkan waa calaamadii ama tilmaantii ku tilmaamaysa in aayadan la isku taagi karo ama la isku taagi karaynin halkana waxa weeye calaamadu waxay ku tusayso quraanka markaad akhrinayso waxa laga yaabaa inaad ku aragto miimka yar miimkaas maaha miim saqiira miimka saqiiraha maaha ee la socda ahkaam nuuna saakina wa tanwin marka iqlaabka la marayo iqlaabka nuuna saakina wa ba'da al-ba nuun saakina ba ka dambayso nuun saakina wa ba'daha ba waxa nuunka saakinka ama tanwiinta lagu arkaa miim yar miimkaasi ma aha miimkan aan haddan ka hadlayno laakiin miimkan waa miim ka weyn kelmadana xagga sare ayuu badanaa ka saaran yahay marka miimka hadaad aragto quraanka ku aragto calaamatul waqfi laazim wey calaamad wuxuu u yahay calaamad ama tilmaan u yahay in halkan in lagu istaaga ay laazim tahay marka dalaaladeedu wuxuu yahay calaamatun waa calaamad ku tusaysa alwaqfi in lagu istaago laazimun wali waa laazim wuxuu ka wadaa sida ay salaada qof walba ay waajib ugu tahay ama laazim ay ugu tahay ayaa markaad quraanka akhrinayso miimka meeshaad ku aragtay ay laazim kuugu noqonaysa inaad ku istaagto khiyaar kale ma lihid macnaha ma waslin kartid oo meeshaas ay miimkaas ku qoran yahay kuma xidhi kartid kelmadda ka dambaysa ama aayadda ka dambaysa laazim waxaa alwaqfi inaad istaagto wey insha Allah mar dambe aan sagana barnaamij ka sameey doono hadduu rabbi idmo waqfiga iyo saktiga iyo qadciga farqiga u dhaxeeya alfarqu bayna alwaqfi wasakti walqadci insha Allah marka calaamatul waqfi waana laazim xagga xukun ahaan oo inaad ku istaagto laazim bay noqonayaa waxaan rabaa marka inaad adigu keento ka arday ahaan aadna dadaasho inaad bal keento aayado quraan ah oo waqfigan tilmaamaysa oo ay mamnuuc tahay in laazim ay noqonayso in halkan lagu istaago way calaamada labaad ee qaadanayna waa la waxa laga yaabaa quraanka inaad ku aragto kelmadda la calaamada marka laaga aayad bay dul saaran tahay maxay macnaheedu taagantay macnaheedu waxa weeye waa calaamatul waqfi waa calaamad ku tusaysa alwaqfi in aayadan lagu istaagay almamnuuc inaysan banaanaynba ayadu waxa weeye macnaheedu waa la maya ha ku istaagin hore u soco way marka laadani waa calaamad ku tusaysa in aysan banaanayn halkan in lagu istaago ayna mamnuuc tahay in halkan lagu istaago marka calaamatul waqfi weeye calaamad ku tusaysa alwaqfu in lagu istaago aayadani mamnuuc inay tahay way marka meesha la ku aragto waa inaad garataa inaysan banaanayn halkan in lagu istaago ayna waajib kugu noqonayso inaad xiriiriso hore aad ku socoto ayadana waxaan rabaa inuu qof walba keeno aayad quraana oo tusaale ah laadan u ah way labada calaamadood ee miimka iyo laamku noocma kuma badna quraanka noocma xoogaa weey laakiin saa uguma badna quraanku weey oo page kasta oo quraan kamid ka helimaysid bal suurada dhan baadan ka helaynba weey marka quraanka aad uguma badna waxaan arkaynaa calaamadaha halkan ay kale ku qorantay jim weey jim ba qoran jim waxa laga wadaa jim waa calaamatul waqfi waa calaamad waqfi ah oo ku tusaysa aljaa'isu inuu banaan yahay in lagu istaago macnaha waxaana siman ala mustawa darafayn labada daraf way siman yihiin labada daraf way siman maxaa laga wadaa ay
waqafta inaad isku taagto cindaha jiimka agtiisa iyo am lam taqif inaadan isku taagin sawaan way siman tahay calaamadan jiimka haddaan si yaro kooban u sharaxo ama si yaro kooban aan isku day inaan idin fahansiiyo calaamada jiimka waxaa la odhan karaa waa calaamada ugu badan si iyada iyo salaadan soo socota waxaa la odhan karaa waxay kamid tahay calaamadaha ugu badan ama wanka ama tuugay ku jirtaa ee qur-aanku leeyahay markaa jiimkaad aragto laga yaaba page kasta oo qur-aan kamid ahna ku aragto macnaheedu waxa weeye aljaa'is alwaqfu walwasli waa sawaa way siman yihiin oo macnaheedu tahay waadna xidhiidhin kartaa waadna ku istaagi kartaa way bannaanta inaad ku istaagto sidoo kale way bannaanta inaad xidhiidhiso keebaa fiican way siman yihiin wey marka calaamad buu yahay alwaqfu istaag aljaa'isu bannaan على مستوى سمن الطرفين لبدا الطرف maxaa laga wadaa macnaha darafka alwaqfi inaad istaagto iyo darafka alwasli inaad xiriirisay way siman tahay way ay waqafta inaad isku taagto cindaha calaamada jimka inaad isku taagto am lam taqif inaadan isku taagin sawaan way siman tahay adiga marka waxa qofka loo siiyay quraanka akhrinay ikhtiyaar iyo doonis ah haduu doonana inuu isku taago haduu doonana inuu xiriiriyo way marka calaamada jimka khaasatan quraanka xaqiisa sare ama quraanka oo dhanba suurad kasta iska daa suurad kasta page kasta quraan kamid ah in laga hela suurtagal bal in laga helo iska daa in dhowr meelood ku jiro ayaaba suurtagal weey sidoo kale calaamadaha waxa kamid ah calaamada sala bimaana silba laga keenay sala waa maxay calaamad bay u tahay alwaqf la isku taago waqfigaas aljaa'isu banaan maca kawni yadoo ay tahay maca kawni ahaanshaha uu yahay alwasl in la xiriiriyo awla mid haboon macnaheedu waxa weeye saligu ama kelmadan salla waxay ku tusaysaa in ay banaan tahay inaad isku taagto aayada laakiin inaad xiriirisaa ka haboon qaab kale kuugu dhigo inaad aayada isku taagto iyo inaad xiriiriso waxa haboon oo fiican inaad xiriiriso macna silway marka iyaduna waxay kamid tahay calaamadaha ugu badan ee quraanka kariimka ku jira haday san number 1 ahayn number 2 bay noqonaysaa ayadii marka jimka ayaa ugu badan labada calaamadood ugu badan marka salaa macnaheedu waxa weeye inaad ku istaagtana way ku banaan tahay laakiin waxa ka fiican inaad xiriiriso way inaad xiriirisa ka fiican marka calaamad ku tusaysa alwaqf in lagu istaago marka waqfigaas oo jaa'isun banaan wa xaq xukun ahaan moogtay jaa'is way haday kii koobad xaqusato haday kii koobad dib u milicsato in la isku taago laazim buu ahaa hadaad kii labaad milicsato in la isku taago mamnuuc buu ahaa jimka hadaad fiirsato jaa'is buu ahaa waa banaan yahay adiga khiyaar kale sala hadaad fiirso waa jaa'is waa ku istaagi kartaa laakiin maca kawni alwasl awla inaad xiriirisa ka si haboon ka soo fiican calaamada kale baran waxa way qala وعلامة الوقف قال بمعنى الوقف وي وعلامة كتوسيس الوقف إن لجو استاجاي جايسون أي بنانتاي مع كون هانشه ويا الوقف استاجوا أولى مذهبون وها عكس اسكسو هرتشيدا صلاة يا قلا وحويه وعلامة كتوسيس إن أي بنانتاي إن اسكتاكتو وي بنانتاي لكن وها كهبون أو كفي عن إن تحريرسو انكو عليو وعلامات كتوسيسا inaad isku taagto way banaan tahay laakiin waxa ka fiican oo ka si haboon inaad xiriiriso marka calaamad kutusaysa way alwaqf la isku taagay jaayis way banaantay maca kown alwaqf inaad xiriiriso macna inaad isku taagto inaad isku taagto haboon oo markaas barbar dhigto inaad xiriiriso inaad isku taagto waxa haboon oo fiican oo la doorta in la isku taago حق الصلاة أيضا كاهن إناد حريرسا يا هبون لكن قلا أيضا إناد اسكتاك تا هبون علامة الوقف الجائز مع كون الوقف إناد اسكتاك تا أولى هبون أو إنتي آد حريرين لهيد وحا كفي عن إناد اسكتاك هذا الحريرسان الدمالي علامة دودا ميسن قادنا أنا وحاوين إبعاهن صدح دا نبعود قال هذا يضو ويفحقا ويفي عنتاي جيمكا كبدن صلاة ويكبدنت لكن قلا يضو ويفي عنتاي آد ببدنت لغاية بيشيشك قيب كمين دور ميلود كجيرتو marka way badan tahay iyada qudheed calaamadahan saddexda iyada quraanka kuma badna sidii miimki iyo laad oo kale way aad ugu ma badna quraanka marka maxay calaamadaha ku tusayaan hadaad aragto saddexda dhibcood oo istaba yaala calaamatun waa calaamad tufiidu faa'iideynaysa jawaas alwaqf inay banaanta in la isku taago bi ahad almawdi'ayn labada boos mid kamida walaysa ma banaana fi kullihima labadooda in la isku taago macnaheedu waxa weeye badana labada calaamadood saas isku daba yaala laba kelmadood isku xigay dul saaran yihiin
marka labada kelmadood ay isdul saaran yihiin waxaa bannaan inaad kelmadda hore isku taagto ama kelmadda dambe. labada boos ee isku xiga midun baa isku taagi kartaa, laakiin labadaba inaad isku taagtahay waa mamnuuc, ma bannaana. inaad labada meeloodba isku taagtahay ma bannaana, laakiin waxaa kuu bannaan inaad ama ka hore isku taagto ama ka dambe isku taagto. adaa khiyaar kala dooranaya. ka hore inaad isku taagto khiyaar baad u leedahay, ama ka dambe inaad isku taagto khiyaar baad u leedahay, laakiin labadaba inaad isku taagtaa iyadu ma bannaana wey. marka waa calaamad تفيد كو فايدينسا ما فايدينسا جواز الوقف إني بناتي نسكو تاغو بأحد الموضوعين لبدا بوس ميد كميدا وي وليس في كلهما ما لبدو دبا معنا لبدو إن اسكو تاغاي ممنوع وي. marka insha Allah waxaan qaadanay 1 2 3 4 5 6 calaamadood baynu qaadanay. insha Allah waan sii wadi doonaa oo rumuusta qayb kamid ah insha Allah inaan ku sii darnaan jecelahay, sidoo kale inaan waqfiga iyo saktiga iyo qadciga inaan saddexdaana kala aan isbarbar dhigno insha Allah waan jecelahay yadana بإذن الله المولى مربوط وقت ويسيو أدبد ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.